wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi hogaaminayo maanta soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxay kormeero kala duwan ku soo mareen dhammaan bajeelasha kala duwan ee ku yaala magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal iyo sidoo kale nootayooyinka sharciga ee ka shaqeeya gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal waxayna deeq kala duwan oo iskugu jira timir bustayaal iyo shawladaha cuntooyinka lagu karsado iyo bariisyo kala duwan gaarsiiyeen jeelka dhexe ee magaalada Boorame waxana xagaasi ku soo dhaweeyay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo salaan sharaf ka qaatay goobtaasi ayaa waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaana ka mahad celiyay deeqdani wasiirku soo gaarsiiyay jeelka dhexe magaalada Boorame taliyaha jeelka booliiska ee magaalada Boorame ayaa waxa uu sheegay calamin maanta waxaan ku soo dhaweynayaa jeelka Boorame wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda oo maanta booqasho noogu yimid deeqna noo keenay aad iyo aad baan kugu mahad celinayna ku soo dhaw wasiir dhankooga iyaguna waxa xagaasi ka hadlay isku duwaha wasaaradda cadaaladda gobolka Awdal iyo sidoo kale taliyaha maxaabiista jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku wehelinaya socdaalka wasiirka ayaa waxa ay sheegeen bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad kulli hadal intaan u lahaa waxa yiri taliyaha xabsiga waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa wasiirka cadaaladda oo dadaal dheeraada ka galay yani kormeerka iyo u kuurgalida habka xabsiyadu u shaqeynayaan iyo habka xaaladda maxaabiistu ku nooshaayba isoo u kuurgalayay balse raacsaday gacan labaad oo ah waxtar waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa wasiirka deeqda oo xabsiyada gobolada gaarsiinayo iyo sida cadaaladda u gaarsiinayo isagoo wasiirka cadaaladda waxaan ugu dambeeyna wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Qani Maxamuud Caataye oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay gobolka Awdal caasimadiisii Boorame joogno aan hor taaganay xabsigii Boorame waxaan maanta keenay deeq aan uga keenay dalka jamhuuriyadda Djibouti oo uu hogaamiye ka yahay madaxweyne Ismaaciil Margeele oo ugu deeqay walaalahood Soomaaliland xoogaa macaawimo ah oo ka mid tahay alaabteena hortaala wax ka badanna aan ka rajeynaa insha Allah diyaarna u yihiin inay gaarsiiyaan anagoo ka duulinaan oo ah wasiirka wasaaradda cadaaladda waxaan u diyaar u nahay inaanu horumar iyo wax walba la qabanno xabsiyada aan ku horumarnana aanu qabanno oo wax meel walba aan xoga doonno aan uga doonno oo isagoo aan madaxweynuhu nagu daba taagay mudan Musabiix Cabdi waxaan maanta noo sharafa inaan bilowgii koowaad aanu ka bilowno gobolka Awdal oo wadi doono ilaa min ceer gaabo jeelka ugu dameeya insha Allah bismillaahir kariim aad baad u mahadsantiin wa Cabdillaahi Daahir wa STV-ga caalamiga saab magaalada Boorame